kulanti wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeena habeennimo waa habeennimo khamiisa jimca soo galayso taariikhduna ay tahay 9 bisha luulyo 2026 wararkii soo dhacay intaynu kala maqnayn ayaynu barnaamijka ku faahfaahinaynaa gabi ahaantii barnaamijkeena caawa waxuu ku saabsan yahay xaalka bariga dhexe oo halis weyn iminka laga soo sheegayo in dagaalkii uu sii kululaanayo ayaa la sheegayaa haddaba wararkii ugu dambeeyay ee soo kordhay haddaan idinla wadaago waxaa la leeyahay telefishinka alcarabiya wuxuu leeyahay duqaymo culus ayay maraykanku sameeyeen oo cusub iyagoo ku qaaday iiraan waxaana la sheegay in qaar ka mid ah ay dhinteen ciidanka ka tirsan ilaalada kacaanka iiraan oo mid ka mid ah uu halkaa ku dhintay duqaymaha haddaba ciidanka maraykanka ayaa dhowr goobood oo iiraan ku yaalla weeraro ku qaaday saacadihii lasoo dhaafay halka tahraan iyaduna ay weeraro ku qaaday dalal ay ka mid yihiin baxrayn kuweyt urdun qatar iyo meelo kale haddaba dhanka kale warar kale oo soo baxay goordhow waxay sheegayaan weerarka maraykanka uu ku qaaday iiraan inay ku dhinteen 3 ka mid ah ciidanka ilaalada kacaanka iiraan kuwaasoo la sheegay inay ku sugnaayeen gobolka la yidhaahdo khoostaan oo ku yaala galbeedka iiraan halkaasoo weerarada maraykanka ay bartilmaamaysadeen sida ay sheegtay wakaaladda wararka iiraan ee la yidhaahdo irna haddaba ciidamada taabacsan ilaalada kacaanka iiraan bayaan rasmiya oo ay soo saareen waxay sheegeen in ay arrinkaasi jawaab kulul ka bixin doonaan oo ay maraykanka gacmahooda ku ciqaabi doonaan sheekadu markaa maraykanka muxuu sameeyey weeraro cusub weeraradaasi waxaa ku dhintaa la leeyahay hal meel askari ilaalada kacaanka mid kale 3 kale oo ilaalada kacaanka marka weerarka waa soo kululaanaya iiraan marka waa xanaaqday baashii ciyaar waa dhaaftay aan ku duqeeyo waa ku duqeynay filimka uu dhaaf iiraan waxay cabaysatay gantaalo waxay haysataa la yiraahdo cruiska dhanka bahriga ama badda haystaan gantaalahaas marka waa kuwii hadda ka hor ay nagta kaga saareen maraakiibtii waaweyneed ee diyaaradaha xambaaraya maraykanka ee ay halkaa kaga eriyeen waa kuwa maraykanka uu ilaa hadda ka baqayo inuu soo maro hormus oo uu gacan u taagay gantaalihii ayaa marka la soo bixiyey makhribkii waxaana lagu asqaysiiyey lagu garaacay qaar ka mid ah maraakiibta maraykanka ee ku sugan baxrul carab meesha la yidhaahdo badda carabta ilaa hormus meel ku dhow ilaa badweynta hindiya ayay u carareen aan leeyahay maraakiibtii waaweyneed xaaladdu marka waxay u muuqataa cirka ayay isku sii shareertay haddaba marka aan idintu soo wararkii ugu dambeeyey tallaabada iiraan ay kaga jawaabtay weerarada cusub haddaba ciidanka iiraan ayay sheegtay wargeyska telefishinka alcarabiya wuxuu yidhi ciidanka iiraan waxay qaadeen weerar ay isticmaaleen sawaariiqda garbaha leh iyaga oo ku qaaday maraakiibta maraykanka ee ku sugan badda ayay ku qaadeen ayaa la leeyahay haddaba marka warbixinta way sii socotay waxaa leeyahay ciidamada iiraan ayaa weerar ballaaran oo sawaariiq kuwa garbaha leh ah oo dhowr xabba ah ku weeraray maraakiibta maraykanka ee ku sugan xeebaha badda waxaana la sheegay telefishinka iiraan inuu si rasmi ah u soo bandhigay weerarkaas afhayeenka iiraan ciidamada waddanka iiraan ayaa sheegay in ciidanka iiraan ay sawaariiqda garbaha leh ku garaaceen maraykanka maraakiibtiisa ku sugnaa dhanka baxrul carab waxaana la sheegay in ay la kulmeen mid ka mid ah gantaalaha ay ku dhacday markab la yidhaahdo kuwa dagaalama oo uu maraykanku leeyahay in markaa nagta laga saaray oo halkaa lagu qararamsaday sheekadii marka way kululaatay markabkii marka maxaa leeyahay maraakiibtii dib u gurashay bilaabeen badweynta hindiya aadaan iyaga meelahan markii nabad jirto oo xabad joojin jirtay meelahan ku feestayaan laakiin markii gantaalahan alaabtan bilaabato way cararayaan waxay tegayaan badweynta hindiya halkaasay marka ay maaragtay joogayaan marka xaalku marka weeraradaas kulul ayaa caawa la isdhaafsaday iyadoo sidoo kalena laga baqayo in dagaalku uu faraha ka sii baxo
waayahay israa'iil marka iyadu xaalkeedu waa sidee dagaalka ma soo gashay mise weli ma soo gelin maraykanku wuxuu leeyahay joog ha isku soo gelin dagaalka weli sheekadu maartay weli waay joogaan le iyaduna waxay leedahay heeganaan galay ku haysaa haddaba marka ardaytu soo wararkii ugu dambeeyay israa'iil laga soo qoray waxaa la sheegay in heegan culus uu ka jiro magaalada Tel Aviv iyadoo u diyaar garoobaysa wareeg kale oo dagaal oo saddexaad oo ay la gasho Iran wasiirka gaashaandhigga Israa'iil ayaa sheegay dhankoodu inay diyaar u yihiin dagaal saddexaad oo Iran iyaga dhexmara abaanduulaha ciidanka Israa'iil ayaa isaguna sheegay in ay filayaan dagaal inuu qarxo dhanka Lubnaan iyo Iran intaba iyaguna ay u diyaarsan yihiin sidii markaa ay iskaga difaaci lahaayeen dagaalkaas nimankaanu marka maxay leeyihiin anagu ta'ahub baa ku jirnaa diyaar garow heegan aan ku jirnaa macnaha iyagu hadda waxay iska dhigayaan inaysan dagaalka qaybka aynaysan ku jirin laakiin heegan aan ku jirnaayo sanaba baasho hadday sii socoto xabadda ma la fursan doonay ma la isdhaafi doono marka waa la isgaraaci doonaa marka waxay leeyihiin wareegii saddexaada binoo bilaabanaya annaga Iran iyaga laba jeer hore la istijaabiyey hadda marka waxay leeyihiin wareegii saddexaad ajawla thalitha la wareegii saddexaad amar dhow isku farasaarayna kii marka diblomaasiyadii Pakistan dadaalkii ay waday heshiiskii laga shaqeynay muddo la waday waa la heshiiyay ilaa meesha Pakistan ilaa Switzerland xagee ku dambeeyay haddaba marka waxaa leeyahay weli ma quusan Pakistan weli waxay rajo ka qabtaa in waxa kan meesha lagu joojiyo oo wada hadalkii lagu soo laabto si aysan sheekadu faraha uga sii bixin xaalku faraha hadduu ka sii baxo way sii xumaanaysaa leeyahay haddaba marka waxaa wada hadlay ninka la yidhaahdo Abbas Araghchi wasiirka arrimaha dibadda Iran iyo taliyaha ciidanka Pakistan General Munir ninka la yidhaahdo haddaba marka ardaytu soo wararkii ugu dambeeyay arrinkaa laga qoray telefishinka Al Jazeera wuxuu leeyahay Araghchi ayaa la hadlay warar bixinadii ugu dambeeyayna ay kala qaateen taliyaha ciidanka Pakistan haddaba wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran ayaa war ay caawa soo saartay waxay sheegtay Araghchi inuu la hadlay taliyaha ciidanka Pakistan waxayna ka wada hadleen waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhacay mandiqada iyo xaalku hadda sida uu yahay haddaba wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran ayaa waxay sheegtay in Araghchi uu si kulul u cambaareeyay weerarada cusub ee Mareykanka uu ku soo qaaday Iran wuxuuna u gudbiyay taliyaha ciidanka Pakistan in Mareykanku si cad u jabiyay uuna ku xadgudbay heshiiskii hore loo gaaray Araghchi ayaa ku nuuxnuuxsaday taliyaha ciidanka Pakistan in weerarada Mareykanka ee Iran ay ku qaadeen ay toos u jabiyeen shuruudihii heshiiskii isfahamka ah wasiirka arrimaha dibadda Iran ayaa u arkay qirashada Washington inaysan u hoggaansamin heshiiska waxaana uu sheegay intaasi ay meel ka dhac ku tahay heshiisyada la gaaray iyo kuwa xitaa mustaqbalka la gaari doono Araghchi ayaa uga digay taliyaha ciidanka Pakistan tacabur kasta oo ay qaadi karaan ama tallaabo kasta oo ay qaadi karaan ciidamada Mareykanka in markaa ay keeni karto dhibaato weyn haddii aan Pakistan aysan ka hortagin Araghchi wuxuu sheegay go'aanka ciidamada qalabka sida ee Iran ee ah inay istifaacayaan inaan marnaba laga laaban doonin madax banaanida dalka iyo sharafka shacabka ayuu sheegay Iran in ay istifaaci doonto waaye marka xaalku caawa halkaas uu maraya Pakistan weli rajay qabtaa wada hadalkan lagu soo laabto laakiin meel maraakiibtii nagta laga saaray jugta la iska galiyay Iran ciidanka ilaalada kacaanka laga dilay xaalku marka waa loo yaabaa waliba saameyn weyn ay arintu yeelatay oo dawlado badan ay ku sii fiday oo Iran ay duqeynaysaa Bahrain Kuwait Qatar Urdun Iraq meel ay dhaaftay male kaliya waxaa haray Imaaraadka iyo Saudi Arabia iyo dawladahan oo dagaaladii hore meelihii ay weerari jirtay Iran ka mid ah haddaba xaalku sidoo ku dambeyn doonaa ma la isku noqon doonaa caawa mar kale difaaca la isugu jiraa Mareykanku ma weerar kale soo qaadi doonaa haddaba waa ka warsugaynaa wixii xaalku meesha uu ku dambeeyo haddaba wixii soo kordha barnaamijyadayda dambe haddii alla idmo ayaan idinkula socodsiin doonaa
akhyaaray wixii cusub halkan ayaad kala socon doontaan innagoo idiin soo gudbinaynaa barnaamijyo xaqiiqada ku salaysan adigoo heli doona macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan xaaladda dagaalka gobolka bariga dhexe laygareey oo sheergareey